kulanti wanaagsan ku soo dhawaada sheeko dhaqameed ka turjumaysa dhaqankii hore ee Soomaalida iyo gobonnimadii Soomaalida hore ay lahaayeen. Sheekadan ciwaankeedu waxa uu yahay gobonnimo, waxayna ku bilaabanaysaa xilli abaar ba'ani ay jirtay ayaa nin madax dhaqameed ah waxa uu yimid martidaasi oo u soo hooyatay reerka ayaa doonaysay reerka inay ka qaataan mag ama sida ay Soomaalidu u taqaano markii labada reer ay kala galaan gabood fallo ay kala qaataan mag taa oo noqon jirtay xoolo iyo sidoo kale xaalmarin ay qayb ka tahay faataxadu. Ninku xoolo ma leh, waxaana kaliya u joogta hal irmaan oo caruurta uu u maalo cunnada reerkaasi ay cunaan ama cuntadu waxa ay ahayd oo aabaha ayaa ugaarsi tagi jiray. Waxaana jirtay xilligaasi abaar daran oo dadka deegaanka saameyn weyn ku yeelatay. Markii sida uu arkay aabihii waxa uu kaliya soo xasuustay inay u joogto hal irmaan ah, hashaasina uu u maalo reerka. Waxa uu ku fikiray waxa uu ku marti soori doono martidan caawa u soo hooyatay. Soomaalidu martida qiimo gooniya ay u leedahay, waana tan halka sheekadan dulcideedu ay tilmaamayso. Xilligaasi oo abaar ba'ani ay jirtay, adeerkii ama aabihii guriga ma uusan isdhihin hashan irmaan ciyaalkaaga ama caruurtaada ayaa u maalinaysaa ee wuxuu sameeyay waxa uu gowracay hashi haweeneydii uu qabay ama xaaskii u dhaxday oo yaaban ayaana ku tiri markaasi war miyaad waalatay, hashii kaliya waa inuu caruurta inuu u maalin jiray maxaad u gowracday, martidusa sawcaawa kaliya lama joogayso, maxaa dhacay, noloshayna dambe sidee ay ahaanaysaa. Waxa uu ku jawaabay hadal caan noqday murti iyo sidoo kale oraah qiimo badan oo ilaa iyo haatan Soomaalidu ay adeegsato. Waana waxa uu yiri adeerkaasi ama aabahaasi, halka danteena ay ku jirto gobonnimo ku jirto, halka danteenu ay ku jirto gobonnimo kuma jirto oo doqonnimo ayaa ku jirta. Sheekadaasi waxay ahayd mid kamid ah sheekooyinkan idin soo xulnay. Sheekooyin kale oo dhowr ah ayaadna sidoo kale mar walba inaga heli doontaan. Soo dhawaada.